soo dhawaada saaxiibayaal halkaan naga daawanaysan oo maskax kubciyo fashiya maanta waxaan ka hadlaynaa ninkan oo markii hore sidan ahaa sidan isku bedelay ugu dambeyntiina sidan noqday maxay tahay sheekada ninkani magaciisa waa Li Hu wuxuuna u dhashay wadanka China muddo 28 sano madaxiisa kor uma uusan qaadin laabtiisa iyo lugihiisa ayaa isku dhagnaa xanuun haleelay kadib isagoo 18 sano jir ah sanadka markuu ahaa 1991 ayaa waxa ku dhacay xanuun lagu magacaabo ankylosing spondylitis فلما magaca kan uu adag yahay hadii aan si khaldan ugu dhawaaqay iga raali noqda hoos baan ku soo qorayaa wuxuuna xanuun aad u daran ka dareemay dhabarka ugu dambeyntiina cudurka ayaa soo ritay qoyska uu ninkan ka dhashay waxay ahaayeen kuwa faqiir ah oo aan awoodin inay geeyaan dhakhaatiirta caalamiga ah ama ay kula wareegaan dhakhaatiirta ugu fiican wadanka uu ku nool yahay Hindiya sanadka markuu ahaa 2018 mar uu dhakhtar tagay si loo qoro ayaa laga diiday sababtoo ah waxay dhaheen qaliinkan waa mid halis ah wuxuuna galaafan karaa nafsadaada sanad kadib bishii March 2019 qoyska Li waxay la kulmeen professor lagu magacaabo Tuwa Haren oo madax ka ahaa qaybta qaliinka laf dhabarta iyo qaybaha lafaha ee isbitaalka guud ee jaamacadda Shanshan Dr. Tuwa ayaa daweeyay bukaanno hore oo ka cabanaya xanuunkan oo kale lafa badan oo la jabiyay iyo 4 qaliin oo isxiixiga oo lagu sameeyay kadib waxa awood u yeeshay Li in markii ugu horeysay muddo 28 sano ah uu arko qofka ka soo horjeeda ama hortiisa arkoba isagoo kaashanaya biraha dadka dhaawaca ay ku socdaan waxa awood u yeeshay inuu lugihiisa ku socdo waxaana loo sheegay in muddo 3 ama 4 bilood gudahooda uu ku caafimaadi doono waa qaliimada tan oo kale waa qaliimo halis ah balse dhakhtar Tuwa wuu ku dhiiraday inuu qaliinka sameeyo maadaama aysan u furnayn option kale oo uu qaato fadlan muuqaalka haddii aad soo gaadhay gabagabada sii share gare subscribe na saar